Soomaalidu ilaahay maxaa idin dambaysiiyay dagaalkii sokeeyaha maxaa nooga dhigay dawga bal galabtana tixda labaad ee barnaamijkeena aad ku furi lahayd saadii sheegtay waxa la yiraahdaa danguudna waa meeshay ka dhimatay Soomaalidu kala hadeen waa halka laga kicilayay waa danguud iyo dawladnimo waa saas soo dhaw mar labaad adiga danguud waayahay qaasinow danguud waxa laga yaabaa waxyaalo badan oo aad la yaabto inaad ku aragto waa gartay wad su'aal ka keento waxyaalo badan oo aan suugaanta Soomaalida lagu aqoon jirin aad ku aragto iyadana aad ku aragto waa gartay kule ada calaamaysan doona wixii su'aalaad ka qabtaan ka keeni doona waa hagaag ayaduna waa daalay kale iyaduna waa daalay si fiican xogaa bal intay ka fududaato ayadana waxaanu ku wadaynaa qaabkii dareeriska si fiican kii dareeriska kaayagi dareeriska absolutely wala socotaa aad iyo aad waxay ku leedahay in dhaweyd badeelayda gabay waanigaan dayine dibnahayga waataan ka jaray dahashadiisii ma danaynin maansooyinkii door xulka ahaa aan dareersho maantoo kale u dayma leeyahay maantoo kale ayuu dayma leeyahay dal waliba wax laga doonayo daahira badane dunidii dhaqaaqdo hawada loo dalacayaa dunidii dhaqaaqdo hawada loo dalacayaa doorkan xidigaha la dago dabaq ku yaalaaye dayixiya mariiqa hadda dood ka socotaa mar dhaxwaatay la hal rinjiyay soo ma garanaysaa dayixiya mariiqa bay hadda dood ka socotaa dunidu meesha ay isku haysato iyo meesha aan dhawaan joogno aad bay kula fogeen Soomaalidu ilaahay maxaa idin dambaysiiyay dagaalkii sokeeyaha maxaa nooga dhigay dawga dagaalkii sokeeyaha inaanu wali alla daba joogno 30 sano ka bacdi oo aan xitaa 10 fiican laga qaadanin oo meesha adduunkuna la isku haysto mariiqa iyo dayaxa wal rinjeynaya iyo walma rinjiyo iyo xaqiina ka mariyo xaqay ka daayay dhinacayo nooga daayay iyo siirjigaad maranaysaan buluug hada ka dhigtan dal calankiisu ee kaana ma gaduudka ku badiya anaga kaayaga soo ma garanaysid Soomaalidu ilaahay maxaa idin dambaysiiyay dagaalkii sokeeyaha maxaa nooga dhigay dawga qarannimo difaac bay rabtaan la daayicin dadka maalka haystiyo dalka maalka haystee iyagu dabaqa dheer jiifa diyaaradaha guuxiya waxa dooni soconaysa diyaaradaha guuxiyo waxa dooni soconaysa wuxuu ku yiri diyaaradaha guuxiya waxa dooni soconaysa dukaanada camiran daaraha diilimaha weyn leh dawlad iyo nin wuxuu yiri dawladnimo tisqaaday rabaan oo dantooda dawladnimo waxaas oo tacabi dawladnimo tisqaaday rabaan oo dantooda ma garanaysaa maatada dayacan ee iyana daanadu ay gaadhay ee dalalka qaarkood waqtigu uu ku baday diifta daash aan biyaha celin kuwa uu ku dooro hadaba ugu dareeyeen soo ma garanaysid daash aan biyaha celin kuwa uu ku dooroobku dunyadiina dhaaftoon lahayn madaxu doodaysa dunyadiina dhaaftay on lahayn madaxu doodaysa دي حالة ودقل دولنما أول لي ربعان أو درين أوله دورشة شنكيدي قشيء لقو دريرايو دلدل الله إيموقضي ونديدا يا بدن دلدل الله إيموقضة ونديدا يا بدن سو ما قرانيست دلدل عدد وينان أركايو كسي درايا درين كي أما هي بلشوي أنا دين ديقوي درين كي أما هي بلشوي أنا دين ديقوي نين والبونا دور كاقا قروا وحكو داني شيخ الدين كيرشو بلشده داعدكو هانوني آخرة رجل الله درو دي بوغا صولابت آخرة رجل الله درو دي بوغا صولابتا دوماركيا عرورتو قريها دومي كسو قورة دوماركيا عرورتو قريها دومي كسو قورة دوكسية دا قرانكو مرقورة اللوحدة ودا دوبا دوكسية دا قرانكو مرقورة اللوحدة ودا دوبا حولها كوي دونا يو دوركان كإمادة حولها كوي دونا يو دوركان كإمادة عيدان كي دفاعو دقنين علص وهيان سايست عيدان كي دفاعو دقنين علص وهيان سايستا دوركي أبوان كو بلشادة فرد دروستين مشرع حل دونا يو مقال ضبوبتايدا مشرع حل دونا يو مقال ضبوبتايدا
waxa gamaca ii diiday baan idin dareensiine dulka maqalka ii fura adoon daacadaan ahay dulka maqalka ii fura adoon daacadaan ahay odayaasha dhaqankow dalkan dumay u soo hiilsha odayaasha dhaqankow dalkan dumay u soo hiilsha soo ma garanaysid ergadan codka u diranayo dawcad ku hagaaga dunidan in laga tagayana galiya diiwaanka dunidan in laga tagayo galiya diiwaanka marka aan duceeyana marqura igu daraamiinta 60 aan ka digayana dadow yaan wax lagu dooran 60 aan ka digayana dadow yaan wax lagu dooran waa hagaag 60 qodob aan ka digi doono yaan wax lagu dooran wuxuu yiri musuq waa shay wax dila diintu say tiriye nin la soo dirsaday baan waqi idin dareemayne intuu daabcad idin marin lahaa yaan wax lagu dooran corruption yaan wax lagu dooran kaaga ilaali waa ko intuu daabcad idin marin lahaa yaan wax lagu dooran doqoniino waa waxa ummada loo adoonsado doorkii niman garan karayn maalin diriireedka intuu duunyo idin siisan laayaan wax lagu dooran wana xoolo doona waa jawaankiisu soo buuxsamay ma garanaysa waa labo intuu duunyo idin siisan laayaan wax lagu dooran dilaal iyo milaal wuxba waa carabta deynteeda dilaal iyo milaal wuxba waa carabta deynteeda wuxuu yiri daalin ataqaano xumaha aan ka didin beenta intuu dariska kala dili lahaa yaan wax lagu dooran intuu dariska kala dili lahaa yaan wax lagu dooran meela socota aad nin walaalkii soo dilay xasuuq daranna soo geystay gaal uu ku dhuntana ka rabo oo xilka u dooni dakanooyin uu galay dartood yaan wax lagu dooran hebel waa dilaayo ninkaas lama hormaro soo baa ku maqan yaan wax lagu dooran dakanooyin uu buu galay dartood yaan wax lagu gooran dibadaha ninka uga yimid inuu ku daanshoodo daartana mar uun tago ileen damici weeyaane dhaqan dooris weeye dadow yaan wax lagu dooran diasporadi kuwaas iyaga baasaboorada ajnabiga watay qurbaha ka soo wax kala baan qorshoodo ahayn inay nasiino u soo aadayna qurbaha waxbarasho ka dagaalay oo leersanayaan kuwii kalena mustaqbalkooda luminaya wuxuu doonayaa isagu inuu nasiino qaato ma garanaysa awada iyo qaraada diiranaya marka nasiinadiiba wuxuu ka dhiganayaa meeshii uu ku daragdacsan lahaa ku dacdaaci lahaa buu dad rafaadsan oo baabaasan noloshoodii uu rabaa inuu ku daragdacsado asagu aad iyo aad wax lagu dooran ma garanaysa waa ninka afraad dibadaha ninka uga yimid inuu ku daanshoodo daartana mar uun tago ileen damici weeyaane dhaqan dooris weeye dadow yaan wax lagu dooran digdiglaha afmiishaarka garanaysaa wuxuu yiri digdiglaha afmiishaarka een dan u qiyaasmaynin agoomaha dayacan iyo miskiin diiftii wali hayso midka aan dareemin qabiil magac ku doonaya waa cudur dilaahi dadow yaan wax lagu dooran waa ninkaas kaarka qabiilku xoqanaya waa ninkaas ninkaana yaan wax lagu dooran soo ma garanaysid 6 qodob wad haysataa waa cudur dilaahi dadow yaan wax lagu dooran daliilkii murtida jeer haddaan idin dareensiiyey dawgagii maansada haddaan idin durduursiiyey codsigii aan soo diray ducada igu daraaminta waa ducadii qaybtii aan ku iridee markii hore sama garanaysa dareen dheere qof garasho dheer oo garasho leh aragti leh aad iyo aad waad ila socotaa dareen dheere tii halka kabe danaha guud dhowre dayax nuura sidii kii bulshada garan duruufteeda ducaysane ilaahu nasii ku dacwaanahay ducaysanaha ilaahu nasii ku dacwaanahay siyaasada mid aan nagu dilay naguna daanaynin ee aqoonta darajeeya ee daacadda u hiilsha dulmi diide ee bow nasii ku dacwaanahay Allahu amiin dadkiisa dayacankii mar qora dhab u dareemaya daanadiina gaadhana dhayo cudurka daaweeya allow duubka noo saar adugu ku dacwaanahay Soomaali darajaysan baan jeer ku dagaynaaye dadkeenu heshiiyaan maqaam door ku galaynaaye
dowlad khayr leh eebow nasiib ku dacwanahay dowlad khayr leh eebow nasiib dowlad khayr leh eebow nasiib ku dacwanahay ilaah aamin ciidan ilaahay ahayn oo bixin karta oo wax la weydiistay ileen ma jirtee dowlad khayr leh eebow nasiib ku dacwanahay allahumma aamin abwan tixdan eraya saameyn igu yeeshay kolley oo dareenkayga soo jiitay baa jira waxaa ka mid ahaa erayadii ahaa aakhira loo diro dib uga soo laabta raggii dhintay oo soo akhriso soo noqdatir ardayda dugsiga quraanka dhiganaysana loo tiiriya waxaan xasuustay gabay uu lahaa nin la oran jiray qaasin oo wadani ahaa 60kii markii calanka la qaatay xorriyadda raggii gabaybu ka mid ahaa markaasuu hal mar waxa ku soo dhacday calanka caawa loo dabaaldegayo iyo Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan bahalkaas iyo xorriyad sidoo u raadiyay iyadoo dadku baraarugin oo Afrikaan xitaa baraarugin qoriga qaatay markaasuu si ilaa caawa hadii Sayid joog Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan caawa bal isagoo joogo un buu qiyaasta asaas bal habeenka calankii oo la saarayo dalkii oo xor noqday Sayidkuna taagan yahay un buu qiyaasta markaasuu ilaa Allah yaa darwiishkii fariin dibcsan gaarsiiyay Allah yaa dalkaaga yiraahdo dawladnimo qaaday dhaxo ku daakay xaqo naga dahsoonay markaasuu wuxuu sawirtay wuxuu gabayga ku soo daray oo sawirayso taleex waliba laga taagay calanka taleex ka babanaya oo fardihii caanka ahaa ay ku damaashaadayaan marka wuxuu isoo xusuusiyay ninkaas sayidka soo akhrito si mugto ilaahay caawid dib soo celiyay sayidka marka gabaygan wuxuu isoo xusuusiyay ninkii qaasin sayidka soo akhrito si oo kale ilaahay ninkii dib soo celiyay caawo su-aashaas horta marar badan baa la weydiiyey kow ma tihid qofka koowaad waaga su-aasha ay weydiiyeen waaga waxaan wada ognaa Soomaaliya inay dowladnimo hesho calan yeelato midnimo yeelato dad baa aakhira waaday waxaanka rag lafahood iyo dhiigood baa ku maqan iyo dhicaankoodii baa ku maqan dhaqaalahood baa ku maqan gabdha dahabkoodii iyo magacoodii iyo masabkoodii iyo maamuuskoodii iyo meherkoodii baa ku maqan wax ciyaar ku yimid ma aha hadiyad kuma iman raggii juhdigaa bixiyey ee Soomaaliya oo calan leh ee libaaxa Afrika ah ee aan afaaraheeda la gelin ee dawladaha doodayadu dawladaha gobolka iyo Afrika siday u xoroobi lahaayeen oo shisheeye iyo gumaysto ugu xoroobi lahaayeen u dooda soo joogay oo maanta xaaladda ay ku jirto iyadana jooga arkay waxaan qiyaasay siday dareemi lahaayeen haddii markaas ay suuragal tahay oo naftu dee marbay baxdaa 10 jeer la yiraahdo nafta waa la idiin soo celinaya waxaan qiyaasay nimankaas inay u dhiman lahaayeen huq iyo laandir wasaas marka maamaha baa jirta Soomaaliya oo aad cajiib oo waxa la yiraahdaa nin maqan baahidiis waa nin jooga caydiis nin maqan baahidi loo baahdo waa nin jooga caydiis kana kaalintii buuxin waayay markaas ninkii la dalbal raadinaya soo ma garanaysid maadaama dadkii ila joogay aniga ay fahmi la yihiin Soomaalinimadii ay fahmi la yihiin dalka iyo nicmada taala iyo waxa uu yahay oo ay ka dahsoon tahay ayaan waxaan isweydiiyay talo haddii raggii soo noqdo soo labaatameeye ku dayatama waayeen oo ay hormuud u noqdaan daba gasho ma garanaysaa sidaas marka waxay la gashay inaad raggii soo akhristo si aan kuwa jooga dhaliishooda u tuso inaad rag maqan aad baad u mahadsantihiin daawadayaal intaas waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii sahanka sugaanta oo galabta marti noogu ahaa abwaan daacad salaad oo inala wadaagay gabayadii qunuuda badnaa iyo qiimaha lahaa Soomaalidana wax badan ku hoga tusaaleynayay qofkii sugaanta dhadhankeeda yaqaan ama dhadhaminaya ama dhageystana wax badan oo kala bixi karo intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa dhamaantayo fi amaanillah